علماء الدين كالسنة والجماعة دالك كونفور أفريقيا يا عمبارية ويرركي إسخرحنته هو جمعية لو قاضي حرونتا في الصومالية مقالة مقدشو قدومية أهل السنة والجماعة دالك كونفور أفريقيا الشيخ محمد إبراهيم قريرة يا عمبارية ويرركي إسخرحنته إساقو سيدو كان تعسي أدري دادكي كودين ويرركاسي وحانا كوي كودا وعمي والله ugabariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo sheekh Garyare ayaa tilmaamay inuu aad uga xun yahay weerarkaasi lagu qaaday xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isagoo dhanka kalena dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha nabaddiidka sida uu hadalka u dhigay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan u tacsiyeynaa dadkii walaalaha ah ee muslimiinta ah ee ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay Villa Soomaaliya أو مدحتوية الصومالية وحاسدو كلا عمباريننا نمكي وجيستي قرحاس أما ويركاس فوشحن ومدة الصوماليين وقرن دوبسكا sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Cabdiraxmaan Axmed Cumar ayaa isna tacsi u diray dadkii ku dhintay waxaana kuwii ku dhaawacmay oo alle uga baryay inuu caafimaad siiyo muwaadiniintii mas'uuliyiinta ahaa ee shalay sida xaqdarrada ah loogu dilay ayagoo shaqadoodii qaranka gudanaya ayagana waxaan leeyahay jannadii Allah ugu bishaareeyo kitaabkooda nabaddigta Allah ka siiyo waxaan cambaaraynaynaa falalka guracan ee ummadda Soomaaliyeed hadday mas'uuliyiin yihiin iyo hadday shacab yihiin lagu waxyeeleynayo waxaanu leenahay ma aragtay dagar qabayaasha diidan nabadda iyo muxuu ahaa wada noolaashada ummadda Soomaaliyeed nimanka diidan waxaan dheeraa ka waan tooba Mustafa Hassan Universal TV Cape Town